waxaan maanta halkaan u taaganahay inaan idin wadaagno qorshaha hay'adda Al-Mustaqiim ee afurinta qoysaska agoonta iyo danyarta bisha barkeysan Ramadaan oo foodo nagu soo hayso sida la wada socotiinba sanad waliba hay'addu waxay samaysaa afurin oo ay u samayso qoysaska agoonta iyo danyarta marka maadaama hadda bishii barkeysan Ramadaan nagu soo dhowdahay waxaan rabnaa insha Allah taala inaan idin wadaagno qorshaha sanadkan aan insha Allah taala damacsannahay intaan qorshe u gelin ka hor waxaan sanadkii hore u sameynay afurin qoysas agoon iyo danyar isku jira oo ilaa 200 oo qoys gaaray ama ku dhawaanay sida awgeed insha Allah taala waxaan dareensanahay bisha barkeysan Ramadaan in qoysaskaas mar walba oo agoonta iyo danyarta ah ay u baahan yihiin garab istaag marka sanadkan insha Allah taala waxaan rabnaa inaan lambarkii xoogaa ka siyaadino walaalaha Soomaaliyeedna inaga qayb qaataan waxaan qorsheynay ilaa 300 oo qoys oo yaraan in aan afurin u sameeyno ilaa 500na ugu badnaan aan gaarsiino haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka arintaas aan galabta u soo istaagnay waliba waxaan ku dhahay ma fadhino waa taaganahay arweyn baan u taaganahay marka waxaan rabnaa insha Allah taala ilaa adinkana si weyn aan naga qayb qaadataan 300 oo qoyskii waxaan ku soo qiimeynay in bishaas ay ku filnaan doonto haduu Ilaahay yiraahdo $50 qoyskiiba $50 marka waan dareensanahay maxaan ku dhahay in $50 bil dhan qoys oo agoon ama danyar ku afuriso inay wax weyn tahay oo laga yaabo maxaan ku dhahay hal maalin inaad dad qada ku siiso amba afar qof oo kale maalintiiba ay ku qaday karto $50 marka waa wax weyn inaad bil dhan waxaan ku dhahay aad uga qayb qaadato kaliya $50 kuma xadidno qof walba waxay awoodo $10 $20 $30 wax uga qayb qaadan karto inaad uga qayb qaadato insha Allah taala arintaas maanta insha Allah inaan idin wadaagno waxaan rajaynaynaa inaad nagala qayb qaadan doontiin adinkoo qof walba waxa awoodo ku soo dirsan doonto akoonada iyo lambarada hay'adda oo shaashada ku qoran waxa maanta meeshan u taaganahay inaan ka qayb qaadano afurinta walaalaheen Soomaaliyeed marka walaalaha islaamka walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u sheegayaa inay nagala qayb qaataan garab istaagaan si aan u afurino walaalaheena agoonta iyo danyarta ah insha Allah sanadkii hore sidoo kale waa sameeyna afurin maanta waxaan rabnaa sidii si ka wanaagsan inaan u sameeyno insha Allah waxaan rabnaa ilaa 500 oo qoys inaan gaarsiino anna idinkana waxaa idinka rabnaa garab istaag inaan wax walba awoodiin ha yaraato ha badnaato $50 ugu badan ilaa $5 qof walba wixii ay awoodo $100 dhiiban kartaa $500 dhiiban kartaa $200 qof walba sida uu Ilaahay uga soo qaado Ilaahayna Ramadaanka ajirkiisa hana waafajiyo Ilaahayna cuduradan socdaan oo saf markay ahna mootiyo Ramadaanka ajirkiisa Ilaahayna gaarsiiyo insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Al-Mustaqiim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa